ilmaha jaamka ku dhashay sidee buu magaca aabaha u qaadan karaa? Magaca ilmahana gadaal ma laga beddeli karaa? Labadan qodob dhegayso. Jarmalka sidee buu magaca u qoraa? Magaca saddexan sida Soomaalidu isticmaalaan Jarmalka kama jiro. Waxaa la isticmaalaa Vor- und Nachname. Vornaamaha waa magacaaga. Nachnaamaha wuxuu u dhigmaa magaca qoyska. Tusaale, haddii magacaagu yahay Yuusuf Cali Xasan, foornaamaha waxa lagu qori doonaa Yuusuf Cali ama Yuusuf oo keliya. Naaknaamahana waa Cali Xasan ama Xasan oo keliya. Carruurtaada naaknaamahaaga ayaa lagu qori doonaa. Magacaaga foornaamaha ayaa meesha ka baxaya. Waxaad laakiin samayn kartaa oo Soomaali badan ay sameeyaan waa haddii ay muhiim kuu tahay magacaaga ayaa foornaamaha labaad ilmaha u noqon karaa. Tusaale, inankaaga waxaad u bixisay Faarax. Waxaad u qorisaa Faarax Yuusuf oo noqonaya foornaamihiisa. Naaknaamahana waa Xasan. Laba, haddii ninkii naagta si sharciyan aan isu qabin, magaca ilmuhu naaknaamaha wuxuu awtomaatish u noqon doonaa naaknaamaha hooyada. Haddii aad taa ka hortegi rabtaan, waa inaad mas'uuliyadda zooga rishtiga kala qaybsataan iyo warqadda aabnimada faatashaftiga ka hor samaysaan. Haddii laakiin ilmuhu magaca hooyada qaatayba oo loogu qoray gadaal xitaa standesamtiga magaca waad ka beddeli kartaan. Waa inuu laakiin aabaha mar kastaba mas'uuliyadda iyo aabinimada samaysto. Hooyadana waa inay raali ka ahaato in magaca ilmaha laga beddelo.